قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. رواه. waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam dhacay baryahan dambana aad u soo noqnoqda waxaanu astaan u yahay marka koobaad in ilaahay subxaanahu wa tacaala caalamkan uu maamulo qoraxdii iyo dayaxu ay ku socdaan ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisa. ilaahay markuu doonana iftiinkooda uu inaga qarinayo, markuu doonana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu daaha inooga qaadayo. masalada ku saabsan ma la sii ogaan karaa, culimada islaamku waxay yidhaahdeen waa la sii ogaan karaa oo qoraxdu inay iftiinkeedu inaga qarsooma ama dayaxa iftiinkiisu inaga qarsoomaa waa arrin leh sabab sharci ah iyo sabab maadi ah. sababta sharciga rasuulka calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay oo yidhi ina ashamsa walqamara aayataani min aayaati illaah laa yankasifaani limowti axadin walaa lixayaatih walaakin allah yukhawifu bihima cibaada. qoraxda iyo dayax waxay ka mid yihiin aayaadka ilaahay, calaamadaha tusiya ilaahay jiritaankiisa iyo awooddiisa. uma madoobaadaan qof dhalashadii iyo mid dhimashadii toona, laakiin ilaahay baa addoomihiisa ku baqageliya. taas waa sababta sharciga ay tahay dadka muslimiinta ahi inay aad u dareemaan oo kaga duwanaadaan dadka gaalada ee eegaya sababta maadiga oo qura. sababta maadigiina waxay tahay waa arrinta lagu xuso juqraafiga oo tusaale ahaan qoraxda in iftiinkeedu inaga qarsoomo waxaa sababa inuu dayaxu dhulka iyo qoraxda uu kala dhex galo. sidaa awgeed ma dhaco qorax madoobaad caalamka oo dhan ay ka madoobaato, waayo dayaxu uu ka yar yahay qoraxda, markaa ma wada qarin karo, dhulka ma wada qarin karo, qaybo ka mid ah ayuunbuu ka qariyaa un. marka mar hadday sababtu taa tahay waa la sii ogaan karaa, laakiin culimmadu waxay yidhaahdaan waxa fiican si aanay arrintaasi u daciifin xikmadda sharciga ee ku jirto ah in addoomuhu ay ka qaadaan alla kacabsi iyo xusuusasho qiyaamaha ay xusuustaan. si aanay sababtaasi u daciifin waxa fiican dadka inaan waxba loo sii sheegin. culimada qaarkood saas yidhaahdaan. muslimka markuu arko in baqa fara badani qalbigiisa uu galo, kaasoo sababa inuu ilaahay u toobad keeno subxaana wa tacaala, wanaaggana uu kordhiyo. waxa kaloo ay ka dheegteen in arrintani ay ka mid tahay calaamadaha qiyaamaha. wakhtiyadan dambe ee dee qiyaamii uu soo dhowaadayba oo sidii wakhtigii nebiga uu ahaa ka soo dhowaaday aad buu u soo noqnoqda arrinka noocaasi. rasuulku calayhi salaatu wasalaam talooyin buu bixiyey oo markii uu dadka tukiyey khudbad buu jeediyey. khudbadda waxyaabaha ku sheegay waxaa ka mid a inay aayaad ilaahay yihiin oo ilaahay addoomaha uu ku baqageliyo. wuxuu rasuulku yidhi faidaa ra'aytum daalika fasalluu wadcuu, markaad aragtaan qoraxda ama dayaxoo madoobaaday tukada, ilaahayna subxaana wa tacaala barya. waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi faidaa ra'aytum daalika fafzacuu ilaa dikrihi wa ducaa'ihi wa istikfaarih, markaad aragtaan qoraxda ama dayaxa oo madoobaaday waxaad u yaacdaan, aad u argagaxdaan xagga xuska ilaahay xusitaankiisa iyo ammaanitaankiisa farabadiya, ilaahay barya subxaana wa tacaala, ilaahayna dembi dhaaf weydiista. waxaa kaloo rasuulku uu amray bilcataaqa in addoomaha la xoreeyo oo sadaqadiina iyaduna waa la macnoon qofka inuu sadaqadu la baxo. salaada markaa la tukado salaatul kusuuf baa la yidhaahdaa. salaadaasi xagga tirada ragcada waa 2 ragcadood. salaadaha kale waxay kaga duwantay iyadoo salaad maalin la tukanaya ah. haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam qur-aanka kor buu u qaaday oo dadka uu maqashiyey sida axaadiista ku cad. waxa kale oo ay kaga duwan tahay halka salaadahan kale ragcaddiiba ay leedahay 1 rukuuca, salaadani waxay leedahay ragcad kastaaba 2 rukuucood. qofku markuu salaadii xidho faatixadii uu akhriyo, qur-aan kale inta uu karo uu akhriyo, uu rukuucaya. rukuuca maruu ka soo toosaa uu ka sujuudi lahaa, qiraa'o cusub buu bilaabaya, faatixadii buu akhrinayaa, qur-aan kale uu akhrinayaa, haddana rukuuc kale ayuu la imanaya. marka 2 rukuucood ee dheeraadka ayay leedahay. salaadaana in la dheereeyo ayaa fiican. nebigu calayhi salaatu wasalaam